أنا أكفر لي أو رئيسنا إياه وأنا جوح إشارة عليس ربانية بدنا أنا جا بس طلدوا أي حرنا جد لبعض الناس بيمده إشارة وحبون آخرين من أجي أنا أود أن كله نكاس وحبوا آخرين يجوج أنا جيب إسامة عليس بيفول مركزي هو صلوا دقون نمان كأهرس ده تمام كنا أهرني بتشرتها ما كل أفر نباها نمان كأهل كود اللي يقول ليني باكحما كوا كونفور إيه ملك النوجيمي أنا كوا دولة دايقة أستمر هنا حبين بمعنى بهرمينا كرصده ساس أنا قلت لها waxaan kaloo rabay wiilka reer Puntland ama reer gaalka caymaanta guriga hooyada jooga canceelada cunaya in uu waxa la yiraahdo aan la oran kaalay shabaab noqo oo waxa la yiraahdo wax dil markii si hoos loo dago nimankii u horeysay 10 nin u horeynay jeertay ma kala afar nin baaha ma fahmaysaa oo waliba la leeyahay waa laan dheerayaasha mudug nimanka la dhaho ma garat ku dhacbay u baahneed tii waxay dhashay maanta gaalkacyo waxa la yiraahdo nabad iyo barwaaqo inaan qof gaalkacyo jooga maanta shabaab ka baqin iyo argaxiso waana aaminsan wax xarjin kuma dili karaan caawa gaalkacyo waa gartay waa maasata waxaan rabaa dad badan baa wareystay timirow ilaa in ka badan 10 qof baa wareystay oo shabaabkii gaalkacyo dhibaatada ka geysan jiray kamid ahaa waxaan ina ogaana marka dabcan dadka marka wareystay dad intaas 20 qof dilay qayb 5 qof dilay maxaa noo sheegi kartaa waxyaabihii aad kala kulantay ma jiraan qof aad yaani qofka markaad dad gacan ku dhiglayaal oo dad laayay markaad muddo wareysanaysid waxba kala kulmaysaa maxaad kala kulantay oo nala wadaagi kartaa oo aan afmeer ka daawan may afmeer waxaan ka daawan hortay ma sheegi karo sida wax loo duubo ama barnaamijka aan u wareysano dadka lama wadaagi karo waana arrin amni haddii wax walba dadka loo shidi lahaana shaqada la qabtay lama qabteenba waxaan ka hadlay waxa weeye yaani مثلا dadka marka wareysanaysid waxyaabo adiga ma ogtahay qiira kugu beeray waxyaabaha adiga insectay ku taabtay wareysanaysid su'aalahan oo waxyaabaha waqfay walaalkay niyahu markaan hadda dib 18 nin u tixraaco kuwa ka dambeeyay wareystay badan oo ka dambeeyay ilaa 3 jeer bay gaalkacay toogasho ka dhacday boosaasana mar bay ka dhacday garowana mar bay ka dhacday qardana mar bay ka dhacday inta afmeer gacanta ku haynay gaalkacyo 3 nin baa aniga ilaa 4 nin baa ila muhiimsanaa nin qaasim al-turaabi loo oran jiray oo deegaan ahaan dhalinyarada ragga koonfur ka soo jeeda kala kamina soo deyn waa soo deynay laakiin nin hadalkiisa la fahmay ma wareysi qof walba ka qaadi karaa laakiin wareysiga qofka inaad ka qaadid wareysigaasi uu dadku fahmaan oo gaaro qofka ku xiranta balaaqadiisa qof aan u abuurnayn inuu hadlo haddaad kalmad weydiisid waa sax ku dhahayo kale waa xoogaal haddaa kaamirada qofka ka damisid sida kugu waramay you cannot imagine marka balaaqusan lahayn ninkaas aan wareysanay maalin wax xasuustaa dadka wuxuu ahaa ma aqaan wax ka khaldan dadka wax akhriyo oo balada ah oo saaxiib u yaqaanay I don't know أنا أكفر لي أو رئيسنا إياه وأنا جوح إشارة عليس ربانية بدنا أنا جا بس طلدوا أي حرنا جد مركا نين وحى إلى شو السرقال وهذا أنا مجعابين كان مرضي أنا يهرف لي نكى لبعض الناس بيمده إشارة وحبون آخرين من أجي أنا أود أن كله نكاس وحبوا آخرين يجوج أنا جيب إسامة عليس بيفول مركا ninkii ila fadhila taagnaba kaamiradi intuu saa u leexiyay isaga darbaaxa ku dhuftay markaas waxa moodaa sida qof anigi waxa noqdo qof koronto lagu dhiciyay oo laga fujiyay markaasaan ma garanaysaa waxa kale ila yaabnaa nin aan muddo raadinaynay xabsigana noogu xiran oo u xiran kiis madani ah kawaan hilib ba ganacsato u xirat kawaan la yaala abayla leeyahda waa ninkii isha muddo kadib baan ogaanay ninku inuu xabsiga gaalkacyo noogu jiro waxa kale ila yaabnaa tin guchis iyo inuu umul laba axmaq bay ahaayeen labaduba oo deegaanka u dhashay anu aan la yaabay waliba waxaan la yaabay anu lama yaabin dadka gobolada kale ka yimid dadka leynayay laakiin nimanka ehelkooda lagu leynayay baa ka xumaa kuwa koonfur iyo meel kale nooga yimid anu kuwa dawladda iga aastay ma barreena aaso xubinba maalin baa rabay inaan karsado
saasaan ku talin lahaa timirow waa maasanta gabagabowga waraysiga waxaa jira muuqaalo aad sii daysay oo waliba live oo shabaabkii la xukumayay marka dilka lagu fulinayay inaad si toos ah u soo gudbisay iyagoo xabadihii lagu dhufanaya intaas runtii marka la fiirina dad badan bay su'aalo ka keenay xitaa xanuun miya xanuun waa xanuunkaas anaa kuu sheegay waa waxa ugu talagalay hadda xanuunku sabab baan kuu sheegayaa aniga shabaab xerdayax bay qarxiyeen dad konton qof ku dhowbay qarxiyeen hooyo suuqa halkaa gacanta waxa weeye qudaar ku gadanaysa baa gubatay igama qarin gaalkacyo xerdayax habeen walba bil walba gaalkacyo qofka ugu macquulsan bay dilayeen isagoo madaxu qaray habaa laga qaaday nagama qarin koonfurta Soomaaliya markaan ka hadalno soobe waad ogtahay 500,000 qof baa ku dhintay nagama qarin qof ordayo gubanaya bay natusayeen tan shiidooyin iyo soo saaraan ayagoo dhahaya gaalaan la diran arday shaam oo dhiganaysa baa la qarxinayay ayagoo hal nin oo dawladda ka socda fiirsanaya horta bilcagsi wixii ay sameynayeen bahasha macaankeeda horta inay dhadhamiyaan waa qodobka labaad anu target baan lahaayay fishin runtaan kuu sheegaya muuqaalkaa arkaysay wallaahi bilaahi tallaahi baan bay kuu sheegeen baa dawladda iyo saraakiishii amniga aan shaqada ka wada haynay in sarraali ka ahayn ana computerka isku laabtay uu yahay marka waxa rabtay sababta waxaan rabaan kuu sheegayaa waaba la igu maago dawladda qayb ka mid ah igu maagtaba muuqaalka markaan baahiyay oo waxa loo haystay in caalam iyo gaalo iyo mashaariic uga xirmayaan laakiin anu reasonka u laa waxa weeye number 1 horta anu ina aarsado dadka ilaayayna u aaro oo sida wax u dileen wiilka aabihii agoonka laga dhigay inuu arkay ninka aabihii dilay sheegtay xabadu si sololku ugu dhacayso tiirka ku xiran Kenya waa qodob waxaan kaloo rabay wiilka reer Puntland ama reer Gaalkacyo maanta guriga hooyada jooga canjeelada cunaya in uu waxa la yiraahdo aan la oran kaalay shabaab noqo oo waxa la yiraahdo wax dil waxaan rabay qof walba oo shabaab ku biira ama noo yimaada in uu ku talagalo hadduu shabaab noqdo caska meel la yiraahdo 18 baa noo xiran inta geysataana lagu geysana lagu turmay qabiil laandheero lahaw aabaha nabadoon ha ahaado kan ragga ugu qaalisan ha ku dhalo ka badbaadi maysa halkaas lagu xirayaa wiilal maskaraad qaba baa imaanaya adoo u jeedo miidhiha laga daawanaya saabaas kula dhacaya targetkaygu wuxuu ahaa marka inaan qofna ku biirin nimanka sababtoo ah dadka annaga ah oo nimanka ku biiray haddii ogaan lahay in caska la iskeenayo kuma ay biireen waxa jiray in nin shabaab la qabtay oo Salmaan la yiraahdo la wareystay mar la weydiiyay Timire wuxuu yiri wuxuu kamid yahay dadka hadaan dilno aan jannada ku galino arintaas waa aragtaa New Salmaan kiiskii timkii Allah u naxariistay ninkii cilmi cali guuleed iyo dilkoodii qayb ka ahaa bay ku jireen waa kuwa u dambeeyay haddaan tooganaynay bay ahaayeen galmudug baa horta kiiskaasi ka soo bilowday qayb ka mid ah nimanka Salmaan ku jiro dhinaca galmudug baa lagu qabtay kadib federaalka qaatay I think inay niisa tahay inay qaateen waan daawada muuqaalku leeyahay haddaan Timire helilaan dhigiisa Ilaahay ugu dhawaan lahayn te walaalle nin aad dagaalsan tihiin oo isha hadda isaadaan labadeena kii gacan fudud oo gacantiisu fadhido waa kala calaf qaadayna ay idin dhaxayso wax kale idin dhaxaya jirin hanjabaadiisu waxa ku soo kordhimayso marka iska war malagi galay baan u arkaa wax cunfiya sababtoo 100 jeer baan soo wacin 10 jeer bay iyo hanjabeen waxaas ani motivation iyo dhiirigelin badan